dadka badanaa lacag ay ceyrsanayaan lacagtaas weligood qaban doonin laakiin haddaad iska dhisto saddexdan dabeecadood waxaad noqonaysaa financially free ay noqonaysaa dhaqaalo walba markaas aan ku jirno fadlan videogan safgareyso asxaabtada la sheegare dabeecada koowaad waa inaad track every dollar walba ku soo galo inaad track ugu kor uma qaadi kartid waxa aan ku cabirnayn dadka badanaa tan way ka hortagaan ma sameeyaan nambaradooda ma ogo lacagtooda meesha ka baxdo ma garanayaan laakiin dadka hantida haysto adduunka caalamka ah way track garayaan lacagtooda every day wax soo galo iyo wax ka baxo way ogyihiin ugu hadii aad track garinin lacagta ayaa ku control doonto inta adiga control lacagtaada buy freedom not flex dadka qaar waxaan arkaa shay uu iibsanayo inay qof kale impress gareeyaan aniga hadda kula hadlayo waxaan only iibsadaa any shay oo markaasi xorriyad ii keenayo ama kor ii qaadayo qof ahaan gaari oo brand new mar uma baahnayd saacad uma baahnayd iyo new phone uma baahnayd every year ina qaadato so tan hore kuma wadayso nolol dhaqaale ahaan hore kuma wadayso ilaa haddaad iibsato maanta guri aad iibsato ama business oo cash flow ku sameynaa iibsato ama shay baabi'inaya deenta yaa shayga hore ku wadaya maskax degan oo ku siinaya number 3 waxaan bartay sidoo bangiga lacagtiisa loo isticmaalo so dadka an average person dadka caadiga ah lacagta bangiga deynta ka soo qaataan then bangiga wuxuu noqonayaan adoon almost like 30 years mortgage ku jiriyaan ma fahansano laakiin dadka caadiga taajirka ah waxay isticmaalaan wax loo yaqaan leverage waxay yaqaanaan bangiga lacagtiisa loo soo qaato sida loo isticmaalo haddaan ku jilciyo leverage basically waa lacag adiga lahayn aad soo qaadanayso si hantidaada kor ugu qaado so mostly dadka wealthiga hantida haysto way isticmaalaan waa strategy ay isticmaalaan all the time so for example dan ku soo kala hadda adigoo kala qof Soomaali tahay maanta dad guri iibsato kale lacagtaadi ma haystid lacagtaasi ina bangi ka soo qaata that's like a form of leverage way laakiin lacagtii hadii strategically u isticmaasho laakiin haddaad 30 sano rabto inaad sugto waa sugi kartaa laakiin bangiga ayaa wuxuu ka sameeyaa lacag maanta guri iibsatay 600,000 oo dheeraad ka sameeyaa almost wuxuu kugu tagaysaa 1,200,000 ka sameeyaan laakiin hadii aad flip gareyso scriptiga oo aad isticmaasho systemka loo yaqaan fast mortgage freedom tan waxay ku oggolaanaysaa inaad mortgage-kaada ku bixiso 5 sano ilaa 7 sano uu bangiga ka sameeyo maximum $100,000 inuu ka sameeyo u badnaan u badato sidan ayuu shaqaysaa so number 1 income-kaada ayaan analyze garanayna waxaan ogaanaynaa exactly inuu ku soo galo waxaan ka soo saaraynaa lacag markaasi adiga kugu filan bil walba ku bixin karto kadib waxaan isticmaalaynaa strategy loo yaqaan recasting HELOC oo dadka hantida leh ay isticmaalaan bangiyada dadka weyn isticmaalaan si aan ugu burburino interestiga kaliya balance-ga aan ugu burburinin haddana waxaan isticmaalaynaa app-kana loo yaqaan FMF oo ah Fast Mortgage Freedom app oo ku ogolaanay everything ina automate gareyso or mariga ka dhigto ana track gareyso inside FMF kaas ku track gareyso everything so dollar walba oo ku soo galo meeshu aad waa ogtahay wuxuu ku dhaweynayaa mustaqbalka ina xorriyad hesho adiga qoyskiina haystaan guri ah 500 ilaa 600 700 ilaa 1 million 2 million guri it depends guriga ay ku xiran tahay so then bangigi faa'iido ka sameeyay halka ku baabinaysa hadii ay dhab ka tahay inaad rabto inaad ku bixiso mortgage-kaada 5 sano 7 sano nagu soo boqo webinar ayaan qaban doonaa webinarkaasi waxaa loo yaqaanaa waxaa aadi kartaa shashada fastermortgagefreedom.com tan waxay ku ogolanaysaa xorriyad dhab inaad hesho dhaqaale ahaan inaad dhisnaataan adiga qoyskiina dad badan ayaa isticmaalaya oo tiro badan oo nimca ka mid tahay uu ka mid yahay Cabdiraxmaan uu ka mid yahay Qaasim dadkaas oo dhan ayaa ka faa'iideystay programkan oo hadda mortgage-ooda ku bixinayo by 2030 qaar ku bixinayaan qaar 2029 qaar waxay ku bixinayaan 2032 maximum waxay kugu qaadanaysaa 7 sano waxaa ada faster mortgagefreedom.com فضلا نسوف لو قرأ فيديو على الرسالة. السلام عليكم.